Assalaamu calaykum sheekadii guusha ee Dhirubhai Ambani. Dhirubhai Ambani wuxuu tusaale kale weyn u yahay dadka ka soo bilaabay eberka ee raacay riyooyinkiisa isla markaana run ka dhigay. Dhirubhai wuxuu ku dhashay India, aabihii wuxuu ahaa macallin qoyskiisana may lahayn lacag badan. Markii uu 16 jir ahaana wuxuu u socdaalay dalka Yemen, halkaasi oo uu ka bilaabay shaqadiisii ugu horeysay. Wax yar kadib Dhirubhai wuxuu ku noqday dalkiisii India, wuxuuna aasaasay ganacsi uu qof kale sheer kula lahaa, balse waxba si fiican ugumay qabsoomin. Qofka ay sheerta lahaayeenna waa ay islaayeen, shirkadiina halkaasi ayay ku baabaaday. Dhirubhai wuxuu ka weynaa 30 jir markii uu bilaabay shirkadiisii labaad. Wax yar kadib shirkadii uu aasaasay waxay noqotay mid caan ah. Wax yar kadibna wuxuu noqday bilyaneer. Dhirubhai waxaa marar badan lagu magacaabay website-ka caanka ah ee Forbes. Waxaa loo doortay inuu ka mid yahay ragga ganacsadayaasha ah ee ugu sareeya qaaradda Aasiya. Hantidiisa dhaqaale ee uu haystaana maanta waxay u qalantaa $60 bilyan. Dhirubhai wuxuu dhintay 2002. Casharada laga baran karo sheekada Dhirubhai Ambani. Noloshii Dhirubhai Ambani waxay inooga filan tahay inay ina siiso xaqiiqooyin aasi kara fikradaha khuraafaadka ah ee ay dadku ka aaminsan yihiin guusha. Fikradaha khuraafaadka ah waxaa ka mid ah: 1. Dadka faqiiriinta ahi ma guulaysan karaan. Dhirubhai wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah, waxaana ka soo bilaabay meel aad u hooseysa, haddana wuxuu noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan caalamka oo dhan. Meesha aad ka bilaabaysaa micno weyn samayn mayso haddii aad u jeelan tahay inaad guul gaadho. 2. Inaad waqti dambe bilowdaa waa wax caadi iska ah. Dhirubhai wuxuu ahaa 32 jir markii uu bilaabay kambanigiisii labaad. Marka aad hadaf leedahay ee aad u jeelan tahay gaadhida hadafkaagaasi, waqtiga aad bilaabaysaa macno weyn kuu samayn maayo. Dadka qaar ayaa guusha gaadha markay 40 jir yihiin, qaar baa gaadha markay 50 jir yihiin, xagga qaar kalena ay ka gaadhaan oo intaasi ka sii badan. 3. Meel kastood ku nooshahayba guul waad gaadhi kartaa. Dad badan ayaa rumaysan in meesha aad ku dhalatay ay saameyn ballaaran ku leedahay sida aad guusha u gaadhayso. Haddii aad aaminsan tahay inaad guul weyn gaadhi lahayd haddaad Mareykanka ku noolaan lahayd, waad qaldan tahay. Haddii aad tahay qof raba inuu guul gaadho, meel kasta aad joogtaa waad ku gaadhi kartaa. Adiga oo meesha doonti jooga waa aad gaadhi kartaa guul. 4. Waan guuldaraystay mana guulaysan karo. Dhirubhai wuu ku guuldaraystay ganacsigiisii koowaad markii qofkii ay sheerka lahaayeen uu kaga baxay, balse muu quusan, waanu sii watay isku daygiisa ilaa uu dhab ka dhigay riyadiisii oo uu xaqiijiyay. Dadka nolosha guulaha ka gaadhay waxay caddayn toos ah u yihiin in halka aad ka bilaabayso noloshaada adag tahay iyo cudurdaarada aad samaynaysaa aanay ku joojin karin. Dhirubhai wuxuu samayn karayay boqolaal cudurdaar, qofna muu eedayn, balse wuxuu doortay inuu geesi noqdo. Taasina waa sababta uu ugu guulaystay hadafyadiisii. 2 mid uunbaad noloshaada samayn kartaa. Waa ta koowaad inaad geesi noqoto oo aanad ka hadhin riyooyinkaaga ilaa aad ka guulaysanayso, amba inaad hesho cudurdaaro aad kaga meeraysto inaad guul gaadho oo aad rumaysato cudurdaarada.